kulan ballaaran oo ay maanta iskugu yimaadeen odayaasha iyo salaadiinta ka soo jeeda beelaha Garxajis oo maanta shir ku yeeshay magaalada Ceergabo ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan oo quseeya iyo hadallada ka soo yeedhay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee uu galwadeenka u yahay Muuse Biixi Cabdi, kuwaasi oo sheegay in dagaal sokeeye ay ka wadaan Somaliland diyaargarowna ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen waxa ay ku sheegeen dagaal sokeeye oo xukuumaddu ku baaqday. hal waa nabadda, halna waa waxaan isleeyahay madaxweynaha maanta ku habboonta inaad tidhaa, halna waa ciidamada qaranka, halna waa Somaliland guud ahaan, halla beeshan baan leeyahay halkan isugu timi. aan kala horraysiiyey qaybta nabadda waxaa ogeydeen inaannu 2 bilood oo wax dhiman socdaal ugu jeegno sidii Somaliland nabad iyo isafgarad wanaagsan loogu soo dabaali lahaa. waxaanu kala kulannay hawl badan oo qof ama ummad doonaysa inay dadka wuxu hagaagaan ku munaasaba inay dulqaataan. waanu u dib jirnay, waanu u dayacannay, wax kasta waanu soo marnay. ugu dambayntii markii halkan aanu nimi waxaanu ummadda u sheegnay inaanu ka keegnay ninkaa sarkaalkaa ee jenaraal Caare iyo ciidankiisa nabadgelyo buuxda oo Somaliland iyo ummadoo dhammi ku degto. waa muranla, waa shakila. markii aanu nidhi isaguna jawaabihii uu ka bixiyey wuxuu ka markhaati furay nabadda uu qaatiyo wuxuu nagula soo ballamay. Somaliland oo dhan baa haysa. iyaba waa nasiib darree waxaan hore u sheegnay dhinaca kale madaxweynuhu kow ka yahay dalka hogaaminaya in isaga markuu xajka ka yimaado la sugo, maalintaa uu yimaadana nabadi waa shay qaaliye, jawaabta uu ka bixinaya ay noqoto mid mudakar oo madaxweynenimo. waxaan hore u nidhi annagoo ka wow qabna arrintaa wixii ka xumaada waa wax madaxweyne xaggiisuun ka xumaaday. muranla maantay dhab noqota. shalay waxaa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha, waayo ciidan qaran waxa ugu sarreeya, taliyaha ciidanka ugu sarreeya waa madaxweynaha. madaxweynuhun ogeyn taanima hadli karo, afkii madaxweynuhu ku hadla. madaxweynuhu intaanaan isaga iman nabadii aanu la sugaynay hawadu noo soo mariyey jawaabtii oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yidhaah waa dil u xukumo bulshadoo dhanna uu maqashiiyo. bal qoodhiya xari mas-uul darrada ayaga waa mas-uuliyad darro, waa khayral-mas-uulnimo. markuu hogaamiyahaagu caynkaa noqdana amarkiisa lama qaato. waxaan leeyahay bulshada reer Somaliland, afka nuuxtaani ku hadlay waa afkii madaxweynuhu ku hadlay. madaxweynaheennu markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydho inana waynu ku diidnay. war soo saa maaha, waynu diidnay, mana aqbalayno. wax la qaadan karana maaha. aduu maxkamad ma tid, madaxweynaha lagu igmaday. ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday. kala irdheynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cakiskii intii lagu igmadaya waanu ku diidnay, kuguna aqbali mayno, kaamanaan aqbalin. Somaliland waa laguu doortay, wixii laguu doortay markaad ka baydhana lagugu adeeci maayo. waxaan leeyahay ciidanka qaranka, waxay ciidan qaran u tihiin inaad bulshadiinna iyo ciidda iyo qaranka Somaliland aa ilaalisaan. haddii laydin yidhaahdo beelaha reer Somaliland qaar ka mida baynu laynanaa, ha qaadanina amarka. saasaa laydin amree. hadalkii shalay waa laydin amro, waxa laydin amray dagaal qabiile, ha qaadanina, diida.
waayo waxaad u diidaysaan mas-uuliyadda ummaddiinna idiga saaran ee bulshadiinna iyo beelihiinna idiga saaran ee kuwii ciidankiinna ka cadhooday ee berri ka maalin idinkuna saasoo kale ayaa laydin odhan doonaa haddaad maanta dagaal qaadaan ciidanka qarankow nin walba berri baa la odhanayaa waa dembiilo qaranoo waa dil ninkii kayrkii loo xiirayow soo qoyso waar ciidanka qarankow dagaal caare iyo beel somalilan tay doonta haatee midna ha ku qaadina waa idinla talinaynaa gacmaha ka laabta waxa laydin amray diida dagaal in la sameeyo diida in dadka la burburiyo diida in dadkiina la laayo diida in dalkiina la burburiyo waxaan uga gudbayaa ciidamada somalilan ka tirsanaa somalilan waa bulsho isu timiyo beelaha warsangeli bay ka hadleen hadal kaloo u dhacayay inuu sool ku socdana wuxuu yidhi kuwa kale hadhayna ha iska tagaan hadalka caynkaasa qof somalilandara oo xuduudaha somalilan aqoonsan oo ku raacsani ma jiraan lana waanu diidnay somalilan oo dhanayna diida somalilan waa qaran isu yimi qofna ma kala diri karo laa madaxweyne laa taani laa cid kalan kala diri karin bulshada reer somalilan waxa inoo ballana inaynu isu keenno dhibaatada ka ilaalino dagaal sokeeye ka ilaalino dalka in la burburiyo ka ilaalino ciddayna hogaamisay halkay u socdaan garan mayno ilmaadeerayaalow iyo walaalayaalow waxaanu idin leenahay haddaad ummadda reer somalilan tihiin warbii waaye dalkii waxa loo dhaqaajiyey meelaan majarihii loogu talagalay ahayn ee ummaddan loo igmanaayo loo doortay ha la badbaadiyo dadkan ha la badbaadiyo dalkan runta ha loo sheego ninkaa madaxweynaha sheeganaya iyo wixii caga ku qaato wato runta ha loo sheego xukuumaddiisa iyo waxa isku daba socdaan runta ha loo sheego inaan dagaal halkan ka shaqaynayn sokeeye bulshadana waxaan leeyahay gacmaha isu qabsada inaan dagaal sokeeye la gelin inaan reer inaga mida la weerarin inaan ciidankeenna qaranka qaybo ka mida la weerarin waxaan ku soo ururinayaa garxajis beelweynta garxajis wuxuu yidhaahdaa nin baan ugu jecelahay maanta berigii horean karaastan jiro wuxuu yidhi dalka uga baqan mayno inay cid kale burburisee madaxweynaha maanta hogaaminaya looga baqanaya ninkaa aad baan u jecelahay waa nin raganimo wey run buu sheegaa garxajisa waxaan idin leeyahay waa laydin taargadgaleeyey dagaal sokeeyaa lagu dhawaaqay waa laga badheedhay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحنا وايلكي garxajis ee nabadgelyada ka wada jabhada caare iyo dawladda waxaanu leenahay nabadgelyada 900 kiiloomitir baan soo wadnay 7 degmaanu soo marinay degmo walba waxaan u soo sheegnay inaan nabadgelyo wadno walowna lalahaa nabadgelyada ma layda ka qaadalaya nabadgelyadii hargeysaanu keenay hargeysa markaanu marilaynay nabadgelyadii waa nala ka hor yimi waa maqlaysaan xukuumaddu shalay waxay tidhi waxaanu leenahay dalka nabadgelya lagu dhisay sharcigiisu waa waayeelkii dhisay Soomaaliland ka mid baanu ahayn waxa weeye haddii dee aa kala dirteen ummadda Soomaaliland waxaanu leenahay anuna ogaada nabadgelya xumada cidda wada inay xukuumadda tahay madaxweynaha dalka uu kow ka yahay waxaanu islahayn ninbaa wixii xajkii mad kordhin baqdin waxaanu islahayn madaxweynuhu markuu soo noqdo isagoo xajkii ka yimi oo dadka u dhibrilaya buu imanaya laakiin imika shaki weyn baa na galay waxaanu leenahay madaxweyne wax la nin hogaana baa maxay ahayd dagaalkii ka xumaaday wax la yiri goormay kuugu daray wixii maalintii aan maxay ahayd waxay ugu daray markaan doqon la tashaday oo doqon ciil qaba la tashaday wax la doqon garanay ciil qabku waa maxay wuxuu yiri wax la doqon nacas buu yiri wax la nacas garanay ciil maxay ahayd doqon nacasnimadu waa maxay wixii waa doqon ciil qaba
waxaanu leenahay dad ciil qabaad la tashatay madaxweyne arrinkaana Somaliland waxa weeye waxaanu leenahay annagu nabadgelyo wadnay nabadgelyo meel looga gudbaa ma jirto waxaan u sheegaynaa beelaha Somaliland nabadgelyadii waa aragtaan halka ay marayso wixii lagu hadlay waa arkayseen annuna waanu hakinay nabadgelyadii waxaanu leenahay wixii ka dhacay buuraha tabcana ee ay dawladdu ku furtay anoo maxay ahayd suldaankii aagaana waxa weeye dhaawac badan baa la geystay dad baa la burburiyay beeyooyin baa la laayay hantidii dadka guuraadka baa la burburiyay waxaana waxa weeye waa laga xisaabtamaya wixii ay noola jiray siyaad barre baa sameeyay baa lagu sameeyay dadka wixii ay noola jiray siyaad barre baa lagu sameeyay ee diyaaradu dadka ku garaacay wax ka xun baa nuuxtaani dadka ku garaacay waxaanu leenahay dalkan wada hadal baa lagu soo doojiyay halka lagu keenay leynama ictiraafin sharcigan madaxweyne aad la ordaysid leynama ictiraafin sharcigu wuxuu iyo xuduudaha la soo xidhi karaa marka layna ictiraafo sharcigan uu shaqay karaa sharciga dalku waxa weeye waa waayeelkii Soomaaliland dhisay annaga sharci oo dalka waxaanu leenahay sharciga dalku waa wada hadal isku tanaasul saamaxaad waxa weeye waa hadii alla ku fahamsiiyo ciidamada qaranka waxaanu leenahay maxay to beelaha ka kooban qoryi beelaha haysta haday hawshu 3 casho si adkaato dagaal la soo celiyo nin waliba waa garanaya guriga uu ka dhashay wuu garanaya guriga uu ka dhashay qorigiisa ha iskala qabto waxa weeye dalkan hadii loogu tala galay in la burburiyo waxaan leenahay anagu ka daaya baan leenahay nabadda hal la qaataanu leenahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed marxaati ka noqoto beelaha darafyada waxaan leeyahay shalay jawaabta xun la siiyay Soomaaliland waa la wada dhistay dad Soomaaliland darabaatihiin dhaqaalaha dalka ka soo baxay waxba ku leedihiin uu lagu faanayay la lahaa dhaqaalaha waxa weeye dhaqaalaha iyaga siinaa dalka wax ku leedihiin gobolada fadhidaan turwada ugu badan ee Soomaaliland wax lagu siiyaa ku jirta waxa weeye xaal baanu idinka siinay arrinka lala khaldamay dalkana waynu wada leenahay dunidana waxa weeye qofku isaga iska taga laakiin dalku ma tago waynu wada dhisanay Soomaaliland la wada leeyahay inuu dhisanay waxaanu leenahay waynu tashalayna waa isku imanaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan maanta shirkan jaraa'ida aan ku qabanayno ujeedadiisii ragii hore ayaa sheegay waxaan la qabaa ragii hore sidii ay u sheegeen arrimaha wixii shalay ta dhacay ee aynu maqalay ee wadanka ka fajiciyay ee dadka ka fajiciyay shalay ta dhacay lagu kala diray Somaliland sidii looga hadlay hore intii ka hadashay waan la qabaa waxaan marka hore hortan doonayay inaan hambaliyo u diro qoladayadii kale ee labaad ee cirigaabo gudideeda ahayd ee cirigaabo ka hadashay shalayta sidii ay u hadleen inaan hambaliyo u diro waxa kale aan doonayay inaan ka hadlo 3 qodob mid weeyaan horta meesha la yiraahdo cirigaabo saaka shalayta markii la kala diray dalka cirigaabo meel bari ka xigta oo taariikhda Soomaaliland ay ka jirtaa ma jirto waa la kala diray dalka sidee loo kala diray ayuu kala maqan yahay halka ninkaas shalayto afka uu ku hadlay ma ahayn afku isagu leeyahay waa afkii madaxweynaha waa hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaan ognahay inuu yahay hadalkaas hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaan ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 94kii madaxweynaha dalku uu yiri aniga wax diri kara duca qaadan maayo waa kiisii sida ay u yiraahdeen ee dadku arkaayo haddaanu anagu beeshanahay ama reer Soomaaliland wixii danaynaya Soomaaliland ay aanu nahay waxaanu leenahay waa kiisii waxay Soomaalidu tiraahdaa bakaylow haddaan kambadhul kugu xumay annakada loobiguma xuma sida aw tirahdeen baanu idin la qaadan heshiiskii aanu wadnay ee aanu cirigaabo ka keenay ee aanu buurta 7 habeen ugu hooyanay ee aanu nabadgelyada keenay ee laga soo waramay waxa lagu bedelay waa arkaysan reer Soomaaliland sida loogu bedelay ayaanu anana ula bedelay
waxaa kaloo doonaya inaan u sheego ciidamada qaranka ciidamada waxaan leeyahay amarro qaldan oo la bixinayo oo raggaa iska hadlaya ay bixinayaan inaydaan qaadan baan idinkana idinku baraarujinaya oon idinka digaya waxaan leenahay maanta xaaladdu halkay taagan tahay reer Soomaaliland waxaanu leenahay waa aragtaan shalayta qoladeedii halkaa ka hadashay salaada ilaahay salaadu eedaan bay leedahay eedaanku waxa weeyaan macnihiisu salaadii waqtigeedu waa taagan yahay aqiim baa ku xiga waa u kaca iyana way eedaameynana waa qiimeynaa aad baa u mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ku qabanaynaa shirkaa jaraa'id oo ku saabsan arrimo aanu baryahanba wadnay oo annagu waxaanu ahayn guddidii garxasis iyo odayaal mustambeeda waxaanu baryahanba ku jirnay arrintii ka dhacday gobolka Sanaag ee Caare waxaanu ahayn raggii halkan ka tegey waxaanu ahayn raggii buurta ugu tegey raggayga halkaa ka tegey danta ummadda ayaanu u tagnay cidna dirtay oo dawladda oo arrinkaa noo xil saartay oo aanu is aragnay ma jirin laakiin dameerkayaga iyo dadkayaga oo aanaan u baahnayn in dee mushkilada ka dhacdaan halkaa u tagnay waxaan geeyey intaas bay ahayd Caare waa kulannay janankaas wuxuu ahaa janan ka cawday markii hore arrimo horta awalan halkaa arrintu inay gaadho oo halkaa Caare arrintiisu gaadho kow waxa ka ah madaxweynaha maalintii ugu horeysay isagoo aan Soomaalilandba ka bixin arrinta ceelaf weyn dib uu ku arkay wuu uga baxay ciidanka isagoo jooga meesha la yiraahdo Bohol ayaa Soomaaliland oo dhan la hadashay dawladda oo markaa wakiil ka ahaa Maxamed Kaan waxa la yiri war arrinta kala reebinaya arrinta korneelka iyo arrinta aynu wadnay ceelaf weyn yaan la kala reebin iyaga diiday madaxweynaha soo diiday culimadii baa la hadashay madaxweyne ku xigeenadii dadkii yimid oo dhan baa la hadlay ergooyinkii baa la hadlay arrintaasi horta inay halkaa gaadho oo uu Puntland tago oo uu jabhad noqdo horta awalan waxa ka ah dawladda xukuumadda cidda xukunta oo ay laba nin ugu weynaayeen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha way dhacday oo wuu baxay oo wuxuu tagay isagoo aan tala garxajis ku tagin oo cid la talanin wuxuu tagay meesha la yiraahdo Puntland isagoo haddana cid kale soo tashanay wuu soo noqday oo dalkiisii ku soo noqday anagu haddaan odayaashanahay waxaan u arkaynay inay fursad wanaagsan oo ummadda u soo noqotay ninkii jabhadda noqday ee baxay ee dib uun keeni lahaa inuu wadankiisii ku soo noqdo fursad wanaagsan oo dalka iyo dadkaba u dana ayaanu anagu arkaynay halkan markii uu yimid labadii ciidan soo fadhiisteen waxaan la noqotay inaan fadhi jirin meesha waan tagnay adigu waanu wada hadalay jabhadda waxaanu ka soo qaadnay nabad inay ogoliin wada hadal ogoliin waxa dadkoodaas ugu taliyo inay raali ka yihiin inay dadkoodii la midoobaan inay raali ka yihiin waxaanu filaynay inay wax wanaagsan tahay anigu horta dawladda siyaad bare ka adkayd garan maayo jabhadii asana markay joogtay maalin walba odayaasha waa loo yeeri jiray waxa la oran jiray warar doona inamadiini warbal odayaal aan cidba dirin oo nabad keenay oo ilaa kii u sareeyay keenay anagu waxaanu filaynay in alxamdulillaah la yiraahdo in wixii aanu wadnay wixii dhib ku noqon lahaa dalkan waanu ka saarnay wada hadalkayga wixii dhib ku noqon lahaa ee culays ku noqon lahaa ee aan aqliga galeen waanu ka saarnay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan saaka ku yeernay shirkaygan jaraa'id uu ku saabsan yahay danahay beesha garxajis waanu ka baxnay wada hadaladii aanu ka dhex wadnay xukuumadda iyo jabhadda Janaal Caare dhammaan wada hadallada waanu joojinay taas waa nacdeen saaka
waxaan kaloo la hadlaynaa beelaha darafyada iyo Somaliland shalay ninkii xukuumadda u hadlay afayeenka xukuumadda shalay ahaa uu kala diray Somaliland ma aha meel qof kala diri karo nagu ma aqoonsanin saacada laga bilaabo taani uma aqoonsanin taliya ciidan nooma aha beelaha Somaliland waxaan leenahay ma aha meel qof intuu soo fadhiisto oo yiraahdo cidda looma baahna ciidana waa loo baahan yahay maaha dadka reer Somaliland waxbay wada dhisteen cid waliba talay ku leeday dalkan beelaha waxaan leenahay darafyada ee shalay gaarka ula hadlayay ee ulaha ciidamadooda looma baahna iyo deegaamadooda dalkay leeyiin adiga qaar waxba laga weydiinayo maaha iyagu waxaan leenahay war weyn isu imarnaa tala qaran baynu ka yeelanaa waxan cidii reer Somaliland ee xumaanta diidan haddaan nahay beesha garxajis waynu isu imanaynaa baran baanu tageynaa taleex baanu tageynaa laascaanood baanu tageynaa buuhood baanu tageynaa awdal baanu tageynaa salal baanu tageynaa haddaan nahay beesha garxajis cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragta waa la hadlanaa oo tashanayna qarannimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlaynaa taasina waa baaqaan beelaa u jeedinayno waxa weeye waxa yimi carre xukuumaddu laba jeer bay gardarro ku weerartay mar dhoob bay gardarro ku weerartay waa la ogaa isagoo halkaa iska maraya baa la weeraray marna buurta tabca lagu weeraray annagoo joogna Ceregaabo oo saa wada eegayna labadii jeer baa annagoo turaala wadnaa gacmaana waanu ka laabanay dhaana waanu ka qarsanay afayeenka xukuumadda shalay tuu hadlayay isagu wuxuu ka hadlayaa waa dambiila waa la qisaasayaa mar dambe hadii xukuumaddu soo hadal qaado wixii ka dhacaa iyada ka mas'uula saacada laga bilaabana cid barbar taageera difaacaysa waa anaga beelaha Somaliland mar labaad waxaan ku celinayaa waynu siibanana tala qaran baynu waxaan ka yeelanaa dalka ka socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا مولانا محمد مركورة محد الله باله محيا هيدي شركة شرائد يعني هالكن ما أنت يدون كوكا بني قلدين الصحافة ده مناسبة دي أنتي لو قلت لك على عائلة هيد فنتي وحيلي رجي هو الصلادين تي يجود دي وضياشي وقاشي بايلي anigu suldaan guud ahaan waa gudoonuun waxaan imika raaciyaa hadal waliba madal buu leeyahay wuxuun baan leeyahay horta marka u horeysa kelmaddan odhanayaa waxa weeye wixii maanta ka dambeeya talad dambe iyo go'aanada dambe garxajis isagaa dib isugu noqon doona maxay hayday oo hawlihiisa wixii khuseeya maxay hayday ka tashan doona halka xaaladdu maanta maraysa loogu dhawaaqay marka waxaan leeyahay horta hadalkii waayeelkii wax garadku yiri hadaan ahay sudaankii guud waa gudoomiyay waa fikir aanu qabno waa halka ay maanta taagan tahay inta waxaan raacinayaa waxa weeye Somaliland anoon kala saarin si wacan bay odayaashu uga hadleen runtii beelaha gaarka si gaarka hadalku ugu dhacayay laakiin waxaan leeyahay guud ahaanba marka la isku soo celiyo waxaan ugu baaqayaa Somaliland qoriga xabadii u maanay ka bixin halka maanta maxay dhawaaqa halka ka baxay in badanna waan baaqayno waa hadlayna buurti gacan libaax baanu ka hadalay dul badan oo kale aanu ka hadalay warnabada dalka hal daba qabatay maanta dalkaas meel xun buu ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna wardal iyo dawlad la wada leeyahay dawlad la wada leeyahay oo dalkan hogaamisa hal maxay ha noqoto baanu ka hadlaynay in badan baa Somaliland ay ka dhagay adeegaysay maanta halkii u dambeysay taagantay waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa Somaliland oo salaadiintu kow ka tahay oo wax garadku kow ka yahay oo cid kastoo danaynaysa ay ku jirto si degdeg shir qaran waa in la isugu yimaadaa si Somaliland looga badbaadiyo halkay maanta marayso qorigu xabadiisa intaanay afka ka bixin hadduu dagaal bilaabmo sida maanta loo dhigay ilaa dagaal baa lagu dhawaaqo Somaliland waa la kala diro halkii u dambeysay bay gaadhay waxa weeye shir degdeg ah la isugu yimaado Somaliland hal daba qabateeyo intay daba qabatada leedahay anigu odayaasha iyo waayeelka halkan ka hadlay intaas uma raacinaya inta kalena waa la qabaa
maxay ahayd sidaasaan hadalkiina inoogu xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu